عليكم ورحمة الله وبركاته. وين دجينا علماء ما تحن قادم دنا 10 كين شنات 1.5 ayaynu qaadan doon ilaa hadda afar shay baan ka soo gudubinay kii shanaad aan marayna chapter-kan wuxuu ku dhamaanay 1.7 hada xasuusta marka ila socda maanta waxaan baran doonaa mid kamid ah waxyaalaha ugu muhiimsan kan C++ aynu joogno waxa loo yaqaan C out yani ereyga loo yaqaan ama function-ka loo yaqaan C out ayaynu baran doonaa. C out maxaa tahay C out كان قاني كمريز إيه أصلا الله آخرنا فريسو C out والله آخرنا يعني واحد آخرنا سمك داخلين C out C out كو حالينا وامد كم إذا functions كأجوم يمسن إيه كتيرة library جينا ما حصل له يقانا input output stream كا library جينا هالك أمر كيجو يري كنا سكرا مثلا input output stream كا وامد كم إذا functions ككودا حتيرة أو الله يقانا C out أينا ما تبران دونا function كالله يقانا C out كو حكو سامي حياة markaad ku dhex jirtid C++ koodka inaad wax soo daabici karaysid oo aad wax soo display garin karaysid ayuu ku saamaxay waxa la yaqaan C out yaani sidee oo kale sida tan oo kale C out ku horta mar walba waxaan ku horeynaa sharaxaada practical-ku ku xigay saa la socdo C out ku wuxuu ku saamaxayaa baa lagu leeyahay in aad wax soo daabacdid console output inaad wax soo deysid tusaale magacayga raba magacayga waxa loo yaqaan Cabdiyaasiin Xuseen Axmed waxaan rabaa inaan soo daabaco function-ka ka mas'uulka ah waxa la soo daabaco ayaa loo yaqaan C out halkaan ku jira library-geena waxa loo yaqaan input output stream ama input output library ayuu ku dhex jira marka wuxuu ku ogolaanayaa ama ku tusayaa uu ku leeyahay qoraal baad soo bandhigi karaysaa number baad soo bandhigi karaysaa adaaqadaada ka soo muujin karaysaa tusaale ahaan oo kale sida tan tusaale oo kale aan intaas kama sax intay qoraan u fiirsada mar walba labada layna waa labadii leen ugu muhiimsanaa sidoo kale main waxaan loo yaqaanaa function-kii weeyaan sheegay in koodka gudihiisa lagu qoro marka halka mar walba aan kooriskan ku guda jiro ama 10 aan dhigayo labada line dhexdooda ayaan koodkan raba ku dhex qoraya marka maanta waxaan rabaa inaan soo daabaco tusaale magacayga oo saddexaad function-kii saamaxay function-kii loo yaqaan C out halkaasaan ku qoraya C out laakiin xuruufta waan wada yaryaraynaya C out baan qoraya marka C out qorasaan wuxuu soo daabaco waxaan isticmaalayaa laba calaamadood oo ah listing way waa function-ka ayaa keensanaya in sida aan u qoro dabeedna maadaama aan soo qorayo magacayga oo saddexan magacaygu inuu yahay qoraal wixii qoraal hareeraha waxa laga marinayaa double quote ba hareeraha laga marinaya yani waa double quote tusaale magacayga waan qoraya tusaale kale waxa leeyahay magacayga waxa loo yaqaanaa Cabdiyaasiin aad u qoro magacayga waxa loo yaqaanaa Cabdiyaasiin Xuseen Axmed marka aan sida u dhameeyo aan hadalkayga ka dhamaadana semicolon baan ku soo xulaya awood hadda waxaan u yeeshay inaan wax soo daabaco magacayga Cabdiyaasiin Xuseen Axmed baa lagu tusi doonaa fiirso haddaan ku dhufto calaamada maaragtay ku qoran tahay buldi aan ran calaamada akhtarka haddaan ku dhufto yar fiirsada daaqa madow baa soo bixi doonta ay ku qoran tahay magacayga saddexan Cabdiyaasiin Xuseen Axmed aynu sugno soo socota daaqada madow haleelay okay وفرصة داقة مدو waxa ku qoran kaysiga daaqada mid waxa lagu qoray magacayga saxan Cabdiyaasiin Xuseen Axmed in magacayga Cabdiyaasiin Xuseen Axmed daaqada mid lagu soo saaro waxa ka mas'uula function-ka loo yaqaan C out haddana ka function-ka ka tago khalkhal baa jiraya marka maadaama aan rabay inaan wax soo daabaco saasan soo qoray haddaan rabay inaan marka wax soo daabaco karo iyo host man ka raacin wax leeyahay C out sidoo kale waxa soo daabacada ama leeyahay labada calaamadood listin ka dhig ha ka tagin labada calaamadood okay okay deetana tusaale waxaan leeyahay waxaad soo daabacdaa jaamacadda Bedel halkaasaan ku qoraya ha yaraado qoraalka ama ha badnaado waxaan rabaa inaan soo daabaco Bedel International University hadalku markuu iga dhamaado wixii aan soo daabacayna ha ka tagin calaamada risk haddii kale waa kuu soo bixi maysa daaqadii madow haddaan ka rangarayo laba jeer baa wax la soo daabacay marna waa Cabdiyaasiin Xuseen Axmed marna waa Bedel International University adii arkay waxaa laakiin dhacay Cabdiyaasiin Xuseen Axmed iyo Bedel International University isku meel baa lagu qoraa ama isku same line ka waran haddana Cabdiyaasiin Xuseen Axmedna raba leen gooniya Bedel International University na leen gooniya waxaan sameynayaa ka hore dabadiisa soo garamaysaan inta aan semicolon soo qorin ayaan raacinayaa wax loo yaqaan end line function-ka end line baa raacinaya marka waxaan ku qorayaa ka ANDL oo macnaheedu tahay marka Cabdiyaasiin Xuseen Axmed aad qortid dhamee koodkayga yani ka leen gooniya ka yar kan labaadna leen gooniya laga yeeri doono balumka dib u rangareeyo fiirsada culimada oo fiirsada wadi arkay imka maxaa dhici doona Cabdiyaasiin Xuseen Axmedna waa leen gooniya Bedel International University waa leen gooniya
كورا مثل حال هذا ربنا صوت دابعه اوكي هكا اسمه قريه مر والله aan rabay wax soo daabaco labada calaamad ka tigmay function ka loo yaqaan si out waxa leeyahay waxaad soo daabacdaa waxaad soo daabacdaa baan leeyahay tusaale ahaan oo kale magaca loo yaqaano Xafsa Nuur Usmaan marka imka hadeen rangareyn maxaa dhici doona saddex hadal baa soo bixi doona Cabdiyaasiin Xuseen Axmed oo leen gooniyo waayo waxaan raacnaa wax loo yaqaan NDL sidoo kale Badar International University oo leen gooniyo Xafsa Nuur Usmaan oo leen gooniyo bal ma eegna inoo rangare oo fiirsada mar walba wanaad u fiirsatay waxaad qoraysid waayo si plus hal leen adu ka khalday waxba ku soo bixi maaya adii arkay Xafsa Nuur Usmaan midna ha iloobina culimay daaqada ay marsaa marna ha iloobina halkan koodka ku dhex qorayna waa function loo yaqaan mainka gudiis oo calaamada ma aragteen card braces ka loo yaqaano korna ha u dhaaf hoos marka halka dhexdiis maanta halkaas min wax ku dhex qorqori doona ma dhaaf kareen soo kale awood waxaan leenahay inaan nambaran soo daabacno kale si out waxaan leenahay waxaad soo daabacdaa nambaran marka wixii nambaran hareeraha iyaga dhabilkooda waxba laga ma mariyo tusaale waxaan leeyahay tusaale laba loo geeyay laba soo daabac laakiin maxaa dhici doona Xafsa Nuur Usmaan iyo 2+2 oo foras meel baa lagu soo daabici doona seen u kala soocaya kan dabadiisa nimanaya maxaan raaciyaa intii yaray NDL marka NDL ka waxaad raacinaysaa mar walba ka ugu dambeeya NDL badan lama raaciyo dad raacisana waa caadi laakiin maadaama soo leen gooni iska noqonayo saddexda hore ma NDL raaciyo oo macnaheedu tahay end line ka iga dhamee inka 2+2 maxaa soo bixi doona waa 4 yani saay waa 4 wadi arkaya maxaa soo bixi doona waa 4 حسب حدنا ذيارك فور بصباح هذا صوت مرجينية أوكي وحن ديه كريا سيدا وكلا وان كلا تشري كريا كلا تشري كوي عادي مع دان دا 2 ماينس 2 يوكلا لبا كتشر لبا حدنا لا لبا واحد كتشر تاع لبا ونسي جي سده يعني سيدا عادي حسابات كم حسب من دونا لبا لبو جين دونا اسكيلتا مرغول بهرينج تواشن شن لبا كتشر دونا waa saddex baa soo bixi doona marka maadaama kan mid ka horeeyo kan maxaan raacina wixii loo yaqaan endline قاعدة وكسر وحي نمبرانا هريرا وحبا كمرين دبل كودو وحي قرالنا بهريرا دبل كودو باهن وكان دي بان روحان قرأي يسوك اوكي maxaa soo baxay tiri maxaan wixii xisaabaadka oo dhan baad ku bees garan karaysaa waxaan jeenayaa horta culimay leeyla fahmay marka function ka loo yaqaan si out ka hadii imtixaanka lagu weydiiyo lagala si out ka muxuu qabtaa waxa la waa function ka mas'uula ama awood inoo siinaya daaqadeena madow ee madowdi inoo soo baxaysay inaynu ka soo muujino qoraal sidii imika jaamacadda Badar iyo magaciina oo kale iyo wixii nambarana tusaale laba geey laba shan ka jaro kale. Assalaamu alaykum warahmatullaahi